وقل رب زدني علما أرضيا يا قلت واسدي إليس واسدا عرورتيو أكتوا بركي أرضيا يا قلت واسدي إليس واسدا عرورتيو أكتوا بركي إرما وين كليه أبد بمالو أقبل معلمين تاو والدكنا عدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا maanta waxaan uga hadli doonaa dalalka magacyadooda ugu dambeeya ay ku dhamaadaan IC sida Croatia, Serbia, Slovenia, Macedonia iyo Greece. In badan waxaad arkaysaa dhalin fara badan oo Soomaali ah oo magacyadooda mareegaha bulshada ay ku soo galaan ay ku qoran tahay Hebel Fitch, Hebel Kale Fitch, Hebel Zij iyo wax la midka ah. Yacni waxaa ku dhamaanaya waa VIEC. Tani ma aha wax yacni dhaqankeena suuban yacni looga bartay ama lagu yaqaanay ma aha. Haddii aan gadaal u raacno aan dhahno abayaashan fiiri ma aha magacyada magaca Soomaali ma aha. Haddaba waxaan doonayaa inaan dadkayga Soomaaliyeed ka jahal bixiyo magacyadan sababtay ay si ugu wada dhamaadaan ilaa dalal badan weeye. Inta Croatia, Serbia, Slovenia ilaa 5 dal weeye oo ay magacyadooda ku dhamaadaan IC. Way jiri karaan dalal kale laakiin 5 dal baa ugu muhiimsan. Sida aan wada ognahay dal kasta waxa uu leeyahay dhaqan ama dhaqamo. Marka aan leeyahay dhaqan waa laga yaabaa sida Soomaaliya oo kale hal dhaqan baa ka jira. laakiin wadamada qaar waxay leeyihiin dhaqamo fara badan oo yacni qowmiyado kala duwan weeye dhaqamo kala duwan way leeyihiin sida dalkan Ethiopia Oromo jirta Tigray baa jira Walaaniya jirta Sildiya jirta Guraaga jira Amhara jirta Tigray baa jira qowmiyadaha shucuubta koonfureed ah jiro mid kasta waxay leeyihiin qowmiyad kasta waxay leedahay dhaqan u gaar ah saas ayaa u leeyahay dhaqamo sidoo kale waxa laga yaabaa in dalka looga hadlo afaf badan sida Ethiopia kala tusaalaha marka la soo qaato maadaama dal la wada garanayo oo darsna nala ah uu yahay waxa looga hadlaa Amhari waxa looga hadlaa Oromo afaf badan baa looga hadlaa af Tigray baa looga hadlaa afaf badan baa looga hadlaa af Anfar baa looga hadlaa afaf badan looga hadlaa Soomaali waxa kamid ah oo luqadaha looga hadlo kamid ah marka saasoo tahay dalalku waxay leeyihiin luqado u gaar ah oo yacni wadankaas caan ku yahay oo hadii for example hadda maanta Oromo hadii la dhaho dalka looga hadlo inuu kan Ethiopia yahay waa la ogyahay haddana af Amhari isla isaga marka waa ka yacni sidaas la mid ah dalalka maanta aan rabo inaan magacyadooda aan xooga saaro ama aan focus gareeyo waxay noqonayaan waxa ay leeyihiin naftoodu yacni fasiraado kala duwan marka loo eego luqadaha kale ama naftoodu waxay leeyihiin luqado u gaara iyo dhaqamo u gaara marka haddaba haddii aan tusaale yar isla aragno oo yacni laba dal oo hadda Serbia iyo Croatia oo kale magac yacni wadamada kala caadi loo yaqaano laakiin iyaga xataa kala duwanaansho oo ka jiro for example waxaan tusaale nagu siinayaa magacyada John waa magac wada garanayno waa J-O iyo H-na oo kale John marka Croatia la joogo magacaasi waa Ivan waa I iyo V iyo A iyo N way marka Serbia dalka loo joogo magaca ama John qofka waxa loo yaqaanaa Jovan oo ah Jovan marka waa arkaysan yacni qaabka u kala duwan yihiin sida Joseph Croatia marka la joogo waa Joseph Serbia marka la joogo waa Joseph oo F buu ku dhamaanaya Stephen marka Croatia la joogo waxa loo yaqaanaa Stevan dalka Serbia waxa loo yaqaan Steven oo V ku dhamaanaya haddaba waxa isweydiin mudan maxay tahay sababta keenaysa kala duwanaanshaha xataa labadan dal naftooda yani Serbia waxay ku dhamaadaan magacyadoodu waxay ku dhamaadaan IC magaca ugu dambeeya waxaan ka hadlaynaa weeyaan sidoo kale yani dalka Croatia waa la masna IC ku dhamaadaan tusaale waxaa noogu filan kubadda marka dheertan badankan maadaama aan daawano ciyaartooyda waaweyn ee Serbia ka soo jeeda for example Tadic oo kale ciyaartooyga u ciyaara kooxda Ajax Tadic
lamartaanka u xirta ku dabiicda ku ciyaaro waa garanayna sidoo kale Matic baan garanayna naftiisa ciyaartoy farbadan baan garanayna sidoo kale magaca ugu dambeeya ay soo ugu dambeeya Matic iyo Tadic magaca kala farbadan waxaa jira sidoo kale Croatia iyagana Modric Perisic Rakitic Kovacic kulli waa asaas weeyaan marka yani waxa ku tusinaysaa kulli waa ku dhamaadaan haddana magacyada hore baa kala duwan hadda Ivan Perisic oo kale waa ciyaartoy ciyaar kubadda kooxda cagta Inter haddana waxaa jira mid waxa laga yaabaa yani magaca la midka Jovan in la dhaho kuwa kale marka yani kala duwanaansho weeyaan aan ka hadlayo haddaba waxa baahanahay inaan fahano dhowr eray oo ah sida Slavic ama Slaves waxa la dhaho Slavis ama Slavis adaas fiican ugu dhaaqo non-Slavic biblical iyo Indo-European iyo waxa la midka waxa baahanahay inaan fahano haddii aan marka fahano dhowrkan eray waxaa noo kala baxaya magacyadan meesha ay ka yimaadeen siyaabaha loola baxo iyo macnahooda iyo marka waxa qofku arkaya yani inay sax tahay inuu Facebook ku qorto magac noocaana iyo inuu iska daayo marka haddii aan ku hormaro ko Slavis waxa la dhahaa waa dad yani isku dhaqan ah isku astaamo ah oo waqti dheer yani marka wada joogay amal yani waqti dheer bay qaadatay dad waqti dheer soo wada jiray oo yani dhaqan waqti dheer soo wada jiray astaamo waqti dheer soo wada jiray si kale waxa la dhihi karaa waa dadka loo yaqaan Indo-European dadka loo yaqaan waa dadka yani ay ka mid yihiin yani Indo-European baa loo yaqaan Indo-European sida dadka Russia Bulgaria Croatia Poland Slovenia Greek Macedonia iyo kuwa kala mid ah يعني waxa kale oo kuwan qaybta loo kala qaybiyaa qaybta galbeed iyo qaybta yani qaybta bari loo kala qaybiyaa caadi ahaan dadkan yani dojuru yahaynka yani joolaafaha maanta marwayna ka hadlo laakiin waa muhiim haddaba si kale Slavis waxa la oran karaa waa dad kale jir cad yani cadaanka indho god ku jira يعني عنده حاجة orbitka يعني marka la dhiganayo anatomy waxaas lagu arki karaa dadka caafimaadka dhigtaas fiican garanaya yani godka ay isha ku jirto waa mid yani aad buu fogtay oo indhahooda god ku jiraan baa la oran karaa sidoo kale dadkan waxa leeyihiin timo yani brown khafiif ah yani timo khafiif muuqda yani timaha anagu yaqaano timo aad jilicsan camal oo yani cadaan u dhow weeye Indo-European sidoo kale waxa la oran karaa waa dad ku hadla luqado isku bah ah kuwaas oo yani degaha qaaradda Yurub iyo Asia qaybo kamid ah sidoo kale dadka xataa marka qaar waxa loo yaqaanaa Proto-Indo-European taariikhdooda dadka waxay gaaraysaa ilaa 3000 haddaba Slaves waa fahna waxa loo jeedo oo dadka noocaasa ba Slaves loo jeedaa haddaba waxa kale oo u baahanahay inaan fahno biblical names magacyada la dhaho yani waa magac sida ka muuqata ereyga biblical يعني waxa loo nisbeeyay Bible-ka buug loo yaqaan oo ay gaaladu u yaqaanaan inay injiisha tahay oo ay bedelaan oo say doonaan ka dhigaan oo diinteena suubana la ku sheegay iyo Quraanka nootuna inay yani taxriif ku sameeyaan yani waa magac la xiriir way haddaba yani nin Slavic iyadoo nafteedu waa magac kale oo qalaad laakiin aan la xiriirin wadamada aan soo sheegnay oo sharaxaad ka soo bixinay haddaba ka waran qofka Facebook ay u qoran tahay hebel kala zij yani magaca noocaas waxay la tahay muuqaalkan kadib inuusan la bixi doonin magaca noocaas halka waxa ku qaybtii koowaad insha Allah qaybaha xiga la socdo marka